السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دكتور محمد أبو بكر شقنور أو كما قاعد دكتورايها كسر هذا برنامج كيني وعيقلين تبرشة برنامج كمان توحنا كذا حد التونا نفقد درجة كنت ماذا ماموين كأوركله سيدا دود أكتهين ماموين كالصوماليات أوركله وحكى على عسن فكرة خطر الله إن هدي أي عنان عنتوين كنفقد أو عنو كوينانا أيو كعبسنا إن هدو أي قليل نقدان laakiin taasi waa fikrad xun waxaan rabaa dhibaatooyinka ka iman kara nafaqadarada maamada oo kale inaan ka hadlo dhibaatooyinka ka iman kara waxaan u kala qaybin doonaa laba qaybood oo aad u muhiimsan dhibaatooyinka ku imaanaya cunuga uurka ku jiro iyo dhibaatooyinka ku imaanaya maamada oo kale aan ka bilaabo maamooyinka uurka leh haddii aysan cunin cuntooyinka nafaqada leh dhibaatooyinka ku iman kara maxaa ka mid ah number 1 waxa uu weyn ku iman karo ayaa ah anemia ama qofku in dhiig la'aan ay ku dhacdo oo qofku haduu isku arko inuu wareero iyo daal iyo waxaas inuu isku arko dan waxyaabaha kale ku iman kara waxaa ka mid ah in maamooyinka ay noqdaan haddii nafaqo badan aysan qaadan in maamooyinka ay ilmaha kasoo dilmaan ayagoon weli xilligoodu aysan gaarin dhibaatada kale ee ku iman karta maamada uur kale ayaa waxaa ka mid ah in hadhow markay dhasho kadib ay dhiig bax kale oo u timaado dhibaatooyinka ku iman karo ilmaha uurka ku jiro haddii aysan maamada qaadan cunto ku filan ama nafaqo ku filan maxaa ka mid ah number 2 in cunuga xubnaha iyo ilaahay ku abuurayo inaysan dhameystirnayn oo hadhow oo cunuga lagu arko in xubnihiisa aysan weli dhameystirnayn for example waxaa tusaale u ah xubnaha ugu muhiimsan sida maskaxda oo kale cunuga maskaxiisa ma dhameystirmayso hadii maamadu aysan qaadan nafaqo ku filan sida folic acid oo kale waxyaabaha kale ku iman karo waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano spina bifida oo ah in xangulaha aysan si fiican u xirmin oo hadhow cunuga lagu arko in meesha uu dhabarka gadaal ee u taalo nabar kuusan oo xangulaha loo jeedo oo hadhow cunuga uu noqdo labadiisa lug paralysis ama labada lug aysan shaqeynin ayaa laga yaabaa dhibaatooyinka kale ku iman karto waxaa ka mid ah cudurka furuyowga waxaa kale ku iman karo dhibaatooyinka ilmaha ku iman karo waxaa ka mid ah ayagoo waxay dhalanayaan oo weydkoodu yar yahay weydkooda macnaha waxa waaye inuu yar yahay miisaankooda inay ilmuhu ku dhashaan xilli aysan gaarin oo macnaha 9 bilood ayaa ilmaha lagu dhalaa for example 7 bilood ama 6 bilood inay ilmaha ku dhashaan waxaa kale dhibaatada kale iman karta ugu weyn ayaa waxaa ka mid ah in cunuga intuu caloosh ku jiro haddaysan maamada aysan qaadan nafaqo ku filan waxaa ku iman karo cunugaasi in cudurada dhaxaltooyada ah inuu u nugulaado for example cudurka dhiigkarka oo kale iyo cudurka sokorta inuu cunuga sokor ku dhasho loo yaqaan type 2 diabetic inuu cunug ku dhasho waxaas sababtaas oo dhan waxaa ka dambeyso maamada intay uurka lahayd aysan waxay qaadan jirin nafaqo marka nafaqada sidaas ayay muhiim u tahay cunugaaga mustaqbalkiisa sidoo noqon lahaa waxay ku xiran tahay intuu hadda caloosha ku jiro nafaqada aad qaadanaysa ayay ku xiran tahay haddii nafaqada aad qaadanayso ay yar tahay cunugaaga wuxuu u nugul yahay dhibaatooyinka hadda aad kasoo sheekeeyay haddii aad qaadato cuntooyin nafaqada leh cunugaagana wuxuu ka badbaadayaa dhibaatooyinka hadda aad soo sheegay marka dhammaan maamooyinka uurka leh siiba gabdhaha aadka u yaryar ee hadda rabo inay guursadaan ama gabdhaha hadda loo guursaday waxaan kula talinayaa inay macnaha cuntada nafaqada leh ay qaataan sida cuntooyin ku badan tahay folic acidkana wuxuu ka dambeeyaa in maskaxda iyo xangulaha cunuga ay si fiican u koraan haddii aadan qaadanna dhibaatooyinka helad aan kusoo sheegay ayaa cunugaaga ku arkaysaa ayaa macquul ah cuntooyinka nafaqada leh aan ku tilmaamo oo ka helaysid folic acidka waxaa ka mid ah malayga iyo ukunta iyo qudaarta oo dhan waxaad ka helaysaa folic acid iska ilaali cuntooyinka kiimikada ku jirto sida waxyaabaha laga sacadeeyay waxaa ku jira maadooyin kiimik ah waxaa laga yaabaa in cunugaaga hadhow markuu dhasho kadib ay ku dhacaan cudurooyinka halista ah sida kansarka iyo waxyaabaha lamidka ah intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta waxaan idinka codsanayaa inaad la wadaagtaan bulshada Soomaaliyeed fadlan ha ilaawin like haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha ilaawin subscribe
sidoo kale ha ilaawin inaad furato gambaleelka si aad ula socoto fiidiyoyada cusub ee aan soo geli doono.